xafladan oo ahayd mid si heersare ay u soo agaasimeen maamulka iyo madrasada Salaaxudiin ee magaalada Cape Town ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda Soomaalidu degan tahay Belfel magaalada Cape Town. waxaa soo xaadiray goobta lagu qabanayay oo ahayd masjidka Salaaxudiin qaybaha kala duwan ee bulshada. qaar kamid ah waxgaradka Soomaalida ee xaafadda Belfel waalidiinta ay caruurtoodu wax ka bartaan madrasada Salaaxudiin waxaana halkaasi ay ku soo bandhigeen caruurta waxyaabihii kala duwan ay ka barteen madrasada sida qiraa'ada iyo xifdinta Qur'aanka Kariimka, ahkaamta fiqiga iyo ahadiista, iyadoo sidoo kale ay halkaasi ku galeen tartano kala duwan oo ku saabsanaa waxyaabihii ay madrasada ka barteen. huwa sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdil Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Khusay ibnu Hakim ibnu Murrah مع المختار مع علي برو لما مع الجاوش علي فرق صدح مع عبد القادر مع المحمود مع محمد مدرسة دمانت وحي ودبال دقيسا حفلتي كوات وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. qaar kamid ah waalidiinta iyo waxgaradka kala duwan ee goobta ka hadlay ayaa sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin bandhiga ay caruurtoodu halkaasi ku muujiyeen waxyaabaha ay ka barteen madrasada Salaaxudiin ayagoo u mahadceliyay macallimiinta madrasadaasi wax ka dhiga. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa macallimiintii dadaalkan sameeyay maanta hortayna ka muuqdo ardadaas haddii alla ku maayo quraanka sidaas u akhrinayo saas ugu dadaalayaan u mahadcelinaynaa marka labaad. marka ardayda intii wax heshay iyo intaanba wax helinba kulligoodba arday guulaysatay oo macallimiintii ku soo dadaaleen oo hal buundo hoose keenay kulligood oo ku jiran ay ahaayeen. inta diinka taqaanana Allah u siiyaadsho intaan aqooninne Allah baro macallimiintoodana ma sha Allah tabarakallah amaan aad u dheer qaateen wax la soo koobi karana ma xamaasadeena way kacsan tahay ha u sugnaato macallimiinta insha Allah macallimiinta lamidana saas u rajeynayna insha Allah bidmilaal kariim. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay maamulka iyo qaar kamid ah macallimiinta madrasada oo ka sheekeeyay marxaladda madrasada iyo waliba waxyaabaha ay u hayaan bulshada Soomaalida ku nool xaafadda Belfel ee magaalada Cape Town. madrasada ardada waxaa lagu baraa Qur'aanka Kariimka ah, taariikhda nabigeena calayhi salaatu wasalaam, fiqhiga, ahadiista iyo culumta diiniga oo dhan lagu baraa. kun ahaantii wax badan ayaa ka dhacay oo khayraada waxaana lagu gabagabeeyay halkaas dhammaan waxa ka soo qayb galay boqolada deegaanka, dhalinyarada, culimaa u diin, qofba meel ka timiday oo ku tartamaya Qur'aanka Kariimka ay ka soo qayb galeenay arday badan oo gabdho iyo wiilalba si wuxuu ku dhamaaday cajiib badan oo aad iyo aad u maqsuud ah. ugu dambeyn waxaa halkaasi hadiyado kala duwan lagu guddoonsiiyay qaar kamid ah ardayda ee ku guuleysatay tartanka iyo waliba kuwa loo soo xiray madrasada oo ah dafcadii koowaad ee madrasada Salaaxudiin ee magaalada Cape Town tan iyo markii la furay sanadii 2013. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Cape Town, Koonfur Afrika.